المال لقد دوبا تبقى لقاك بيرا تكندا كوغرتا تدنمدا كبرتا دوشا سارة على جير الدافع وربايال تتكالوغو تخلقالي نلوهو ودايدايو بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوادا برنامج كيلي مقالك تطباتك وأنا دي كسر قد بنو Somaliland National TV مقالة أوسلو إدالك النروي برنامج كان وهذا يتر ويديد هي محمد سامع علي برنامج هذا يتر وحن كسر قاعدنا موضوعية كلا دون سيدا يدا وشو رايسن بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوادا برنامج كيلي مقالك تطباتك إيدي كيما تري حروت تي في قرنك أوسلو النروي ما أنت برنامج وحن نوغو مرتئة محمد نور أحمد أو nin in badan deganaa dalka Norway oo aqoon-yahaniinta dalka Norway ka mid ah wuxuu muddo ilaa 30 sano ayuu Norway deganaa intii ka horeysay wuxuu joogay oo deganaan jiray oo ka shaqeyn jiray wadanka Imaaraadka Carabta sida awoodeed waxaan u soo xulanay inaan wax ka weydiino maadaama uu in badan ku noolaa dalka Imaaraadka oo uu ka mid ahaa hoggaanka ciidamada ee Imaaraadka iskuulka lagu tababaro xafiiskiisa uu fadhiyay sida awoodeed waxaan soo xulanay inaan wax ka weydiino xagga Imaaraadka iyo wasaligan berbera iyo wadamada Carbeed isagoo aqoon badan u leh oo dhowr iyo 10 sano ku noolaa dalka Imaaraadka sida awoodeed baan idinku soo xulay Maxamed waayo waxaan u baahanay dad khibrad u leh Imaaraadka oo deganaa si ay xoog inooga siiyaan wadanka Imaaraadka sidoo u dhaqmo sidoo yahay waayo wax badan kama naqaano sida awood baan u soo xulanay Maxamed Nuur Axmed ku soo dhawaatay fi qaran ولوه Maxamed in badan ayaad ku noolayd dalka Imaaraadka dhowr iyo 10 sanaad ku noolayd waxaad ka mid ahayd ciidamada ayaad ka tirsaneed waliba waxaad ka shaqeyn jirtay qaybta saraakiisha ka soo baxday iskuulada hoggaanka ciidamada lagu tababaro saraakiisha bal horta wadanka Imaaraadka nooga war بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنك إماراتك ودن كميدا ودمدا عربيد عالمك كويالا وودن كتسن دولتها خليجك كويالا قعنك خليجك ان وودن دقن أهان يدين أهان با أينو آد دين أينو سكو دين هايو مسلنا وانا دادaynu dhaqan ahaan aad iyo aad isugu dhownahay haddaynan isku mid ahayn runtii afkuna ku kala duwan af Carbeedka iyo af Soomaaliga dhaqan ahaan aynu aad iyo aad iskaga mid nahay 90%. Maxamed waxaad ahayd siyaasiyiintii SNM ee lagu yaqaanay dadka qurbaha jooga shirkii ugu dambeeyay ee lagu qabtay Boorama waad joogtay ragii ka tagay dalka Norway ayaad ka mid ahayd waad ogtahay dalkeenii iyo dalka Imaaraadku imka sida isugu xidhmeen bal sidee Imaaraad saldhigaasi faa'iido muxuu inoo yeelanayaa dalka Imaaraadka waa su'aal wanaagsan Maxamed dalka Imaaraadku sidaan ku sheegay wuxuu ka mid yahay dalka Khaliijka kamid dalka Khaliijku waxa weeye waa Imaaraadka Sacuudiga Cumaan Qatar Bahrain inta waxa la isku yiraahdaa dalka Khaliijku xagga militariga oo way ka midaysan yihiin oo xitaa waxay sameystaan muddadii aan ka shaqeynay militariga akaadimiyada saraakiisha lagu tababaro oo administration officer ka ahaa ciidamada la yiraahdaa quwwat tadakhul sariic khaliij lidul khaliij ciidamada gurmadka degdega ah dowladaha khaliijka marka waa dowlado ka siyaasiyan iyo military ahaanba ka midaysan oo wada shaqeyn leh military siyaasadeed saldhiga aynu siinay Imaaraadka
saldhiggan imaaraadka siinay waxa weeyaan waa saldhig runtii iyagana faa'iidadu leeyahay waxa weeye horta magac ahaan faa'iidadu leeyahay waayo waa dowlad yar oo lacag haysato oo magaca iibisa yacni magaca imaaraadku inuu meel gaadho lacag badan ku bixisa laba ciidankooda waa ciidan u baahan inuu training qaato oo militarily inuu maaragtay la qaato ciidan kale training la qaato inuu dal kale training ku qaato si uu quwadiisa ama cilmiga military ay kor ugu qaadaan ciidankooda iyaga dhinacyada markaad ka eegto faa'iiday u tahay xagga military ahaan dhinaca kale dagaalkan ka socda golfka ee xagga yeman oo kale markaan eego waxa weeyaan baddan cas in ammaankeeda khaliijku qayb weyn buu ka leeyahay inuu baddan cas ilaaliyo sababto waxa dalal batroola waxa weeye waa dhulka dee dhaqaalahoodu waxa weeye baddan uu ku xidhan yahay iyo dee dhaqdhaqaaqa ilaa baabilmanda meesha la yidhaahdo ee badda xagga kale ee iiraan ay ka leeyihiin xagga ammaanka badda iyo ammaanka dalalkoodaba iyada lafteeda door buu ku yeelanaya maxamed markaad eegto dad badan oo reer somalilan ayaa ka tirsanaan jiray ciidamada imaaraadka carabta oo u shaqeynayay aduu maadaama meeshii aad joogtay tababarka lagu bixinay saraakiisha dad intee leeg baa u shaqeynaya oo reer somalilan wallahi kolley anagu halka akademiyadda lagu tababaro saraakiisha waxaanu kaga shaqeynaynay anigu administration officer baan ka ahaa waxaa rag macallimiina joogo uu ka mid yahay professor ibrahim farax joojo imika holland degan waxaa ka mida nin la yidhaahdo professor caraale oo imika denmark degan waxaa ka mida yuusuf dubad saleeban oo weli halkii ka shaqeeyo oo imika isaga qudhiisu degan alcayn oo halkii weli ka shaqeeya waxaa jira nin lahaa sheekh dayb oo sheekh oo waacid ah oo xagga diinta isagu oo weli halkii ka shaqeeya isna oo reer gabileya dad badanina way ka shaqeynayeen oo dee shaqaale hoose ah oo soomaali fara badan laakiin imanka sida igu maqaalo ah way ku yaryihiin imanka inta berigi hore waa lagu badnaa laakiin imanka aad iyo aad bay ugu yaryihiin halkaas saldhiga haddaan dib ugu yar noqdo saldhigu inagu muxuu faa'iido inoo leeyahay baa iyana meesha ku jirta muxuu faa'iido inoo leeyahay somaliland muxuu faa'iido u leeyahay faa'iido u leeyahay waa mida horta dhaqaalaha ka soo gelaya oo dee saldhiga la iskama siinay lacag buu ku fadhiyaa oo waxaa ka soo gelaya dhaqaalo badan dowladda somaliland iyo dalka somaliland kow waxaa faa'iido kale ay u noqonaysaa ciidamada somaliland oo ka helaya kabis anigu saan filayo ka helaya kabis xagga matalan trainingka مثلا حق هوبكا واي ودولة لعق بدن haysato hub badan oo laga faa'iido weyn bay xagga militarigeena iyo qiimo badan bay ugu fadhidaa runtii xagga militarigeena saldhigaas ugu fadhiyaa oo faa'iido weyn xagga militarigeena ku helayo iyo inay militarigeena qudhiisu deel daribo aynu baahnaa cid inoo daribto oo inoo magaranaysaa ay la qaataan exercise la qaataan oo ka faa'iideystaan maartay de kor u qaadista xaggeena lafteeda ciidanka maxaad markaad eegto wadamada dariskeenna lah Djibouti oo kale raalli kama aha saldhigan kuma faraxsana sida wararku ay bixiyeen la taliyaha madaxweynuhu dowladda Soomaaliya iyada laftigeedu raalli kama aha oo adarkaysaa in Sacuudiga ay ka dalbadeen in la dhexdhexaadiyo imaaraadka miyaanay ahayn in dalkooda ka tashadaan ay dalkeen inagu aynu xornahay dowladda Soomaaliya waxa weeyaan iyadu kulli Somaliland waxa la wixii u faa'iido iyadu raalli kama aha sirriye ana way u fikirayaan oo anaga Somaliland xukumno oo stream oo Rio taa marka tiriyada ku salayso iyagu waxa weeyaan wax alla wixii Somaliland wuxuu u kordhiyay uu ka soo horjeedaan Soomaaliya marka iyaga halkaas aan ku dhaafaya markay timaado Djibouti saldhigya oo khaliijku ka mid yahay oo Sacuudiga kale ku leh Mareykan baa ku leh China ku leh
waxaa ku leh dowlado badan oo yurub baa ku leh faransiis baa ku leh waxay saldhigga imaaraadka ay jabuuti u aragto negative taasi waa siyaasad kale iyo arrimo kale oo aan jabuuti ujeeddadeedii waxay ka leedahay ay iyadu sheegi doonto maxamed markaad eegto wadamadii khaliijka dagaal bay ku jiraan yeman daris baynu nahay inkastoo dhinaceena nagu beegan ee ammaan uu ka jiro halkan masaaridii baa joogta xaggan eritrea joogta muxuu saameyn ugu yeelanaya dagaalka xaggaa ka socda dagaalkani waa dagaal u dhexeeya nimanka la yidhaha xuutiyiinta oo shiica ah iyo dadka deegaanka intiisa kale oo yeman oo sunniyana xuutiyiintu waxay degan yihiin degaankoodu yeman oo qura kuma koobnay sacuudiga laftiisa ay soo galaan oo shiicadu qeybbay way soo galeen xadka sacuudiga gudihiisa way soo galayaan xuutiyiintii dagaalkan iyagaa riday waxay damceen inay qabsadaan yeman si ay awoodda iiraan baana ka dambaysa arrinkaas waa arrin sensitive ah siyaasiyan waxa weeye waa arrin sensitive ah waana mandaqadda arrin ku ah runtii khatar ku ah markaad eegto waxaa taa la baaralala dagaalada ka socda for example ciraaq iyo suuriya oo isna sunni iyo shiica ku salaysan arrimaha markaad isku soo duubto waa arrimo isku xidhan oo aan kala go'nayn oo shiica iyo sunni la xidhiidha political problemska ka jira areada arab countrieska waxa weeye waa mid la xidhiidha tan xuutiyiinta yeman dagaal ka socda arrinkaas waa mid inaga lafteenna saameyn inagu yeelanaya haddaynaan aynaan iskaashi ka samaynin ciddii dee aynu la leenahay xidhiidh siyaasadeed ama mid military weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkeeni muuqaalka toddobaadka ee idinka iman jiray xarunta t v qaranka oslo norway maanta waxaa noogu marti ah maxamed nuur axmed oo ah rugacdaa xagga siyaasadda in badan kusoo jiray oo ka tirsanaa raggii snmta ka waday qurbaha ee markii dambena dalka gudihiisa ka dhaliyey dowladda maxamed halkan wuxuu dagaalaa muddo 30 sana wuxuu ka tirsanaa raggii xaggan ka abuuray xafiiska snm ee dalka norway wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka snm ee dalka norway intaan daawalan iyo intiinii horena daawalaysay intiina imika soo gashayba waxaan leeyahay barnaamijku waa barnaamijkii muuqaalka toddobaadka oo noogu marti yahay maxamed nuur axmed oo aanu ka wareysanayno isagoo muddo badan deganaa dalka imaaraadka waa dalkan iminka aynu saldhigga militariga berbera aynu ka siinay sidaa aawadeed waxaanu raadinay dad muddo badan deganaa oo ka soo shaqeeyey oo dhaqankoodii iyo siday tahay inaanu xog u doonno si aan uga helno qaabka loola dhaqmi karo dalka imaaraadka isagoo ka mid ahaa xaruntii ciidamada ee saraakiisha lagu tababarayey uu haystay halkaas oo dee uu ku fahmayey habka loola dhaqmaya imaaraadka maxamed inagoo ku dhex jirna barnaamijkeenii waxaanu kooro lahaa muxuu dhibaatay inoo leeyahay maadaama saldhiggii iminka berbera la siiyey oo la ogolaaday oo la saxeexay muxuu faa'iido inoo leeyahay wax dhibaataa oo inoo leeyahay ma jirto ninka horta generaalka ciidamada imaaraadka imka haysta waa ninkii korneelkii aniga iiga sarreeyey administrationka madaxdii ahaa ii ahaa wax faa'iido mooyaane wax dhibaato inoo leeyahay saldhiggaasi absolutely ma jiro dadka qaar baa waxay yidhaahdaan dagaalkaa oo qayb in naga noqonayo xuutiyiinta ayna soo weerarayso oo gantaallay soo tuuraya berberay kusoo dhici doona waan maqlay sheekooyin caynkaas laakiin waxa weeye xuutiyiintu awoodda ay leeyihiin tii dalkooda gudihiisay iyo awooddoodii iyo istifaacoodiiba ayaa yar awoodda ay berbere kusoo gaadhaan ama ay wax ku yeeleeyaan horta xuutiyiintu ma laha taasi waa taa imaaraadkuna qayb kama aha dagaalkani waa dagaal yeman dhexdiisa ka socda oo xuutiyiintii u dhexeeya yemaniinta kale
imaaraadku qaybta ay ka noqon karaan ama sacuudigu ama dalal kale khaliijku waxa weeye taakulayn xag dhaqaale iyo xag sanad military for example laakiin markay noqoto xagga waxaan leeyahay quwal bashariya yani dadka militariga ahaan yani ma gelayaan waa laga yaabaa inay meelaha qaarkood ka caawiyaan xagga diyaaradaha targets specific targets cayiman oo waqti yaro koobana inay ka caawiyaan oo wax dhici kara laakiin wax kaloo taakulaynta aan ahayn ma jiraan taa markaad eegto wax dhibaato inaga inoo leeyahay ma jirto waxaan faa'iido ahayn oo inoo leeyahay oo dee faa'iidooyinkuna kuwaan soo sharxay dhaqaalaha hadday noqoto waayo matalan bayska sanadkii dee intaasoo 100 milyan baa ay dowladdu ku helaysaa oo somaliland ka helaysaa waa faa'iido iyo dhaqaale aanay dee aynaan hayn oo u soo kordhay bay noqonaysaa dee u soo kordhay sida dekadda berbero oo kale waxyaalahaas markaad sawirradaa eegto dee wax weyn oo faa'iido weyn oo dalka u soo kordhay weeyaan ee wax dhibaato ah uu leeyahay absolute ma jirto maxamed markaad eegto labada xusbi mucaarad xusbiga ucid wuu soo dhoweeyey waana ku hambaliyey xukuumadda laakiin markaad eegto xusbiga wadani wadamada yurub wuxuu ka wadaa in waraaqo uu qaybinayo wasaaradda arrimo dibadeedka oo uu ka soo horjeedo isagoo wuxuu ku bedelayana aanu sheegin miyaan la odhan karin horumarkii dalka ayuu ka soo horjeedaa waan maqlayay mudaharadadana waan arkay for example kii la dhan oo kale aan ogaa waxa weeye xusbiga waddan horta waa xusbi mucaarada xusbiga mucaaradkiina wuxuu doonayaa tartan inuu galo siyaasadeedoo xusbiga muxaafidka ah ee dowladda haya imaka la galo meel alla meeshuu ka qandhiifan karo ee uu isleeyahay waxbaad ka dumin kartaa ama ka taaban kartaa dee wuu taabanayaa laakiin waxaan ka xumahay in waa xalaaltaasi waa arrin xalaala in dee lagu tartamo siyaasadda oo meelshii aad gashan kartaba ay kuu gasho aad qanjiirin karto ka qanjiirin karto xusbul xaakimka laakiin markay arrinku yahay wax ku saabsan qarannimada somaliland wax somaliland u soo kordhay haddii aad qanjiiradii ku dartaa taasi waxay u yar eg tahay arrin dee aan qiimayntii somaliland iyo tartankii xusbinimo aad ku jirtay aad adiga laftaadu meel kaga dhacayso yaa u muuqanaysaa markaan dhinac ka eego laakiin in lays carido oo lays yidhaahdo taasi inooma wanaagsano oo saasaan inoogu wanaagsanayn dee waa arrin xalaal ah oo laga doodaas uu keeno xusbiga waddani laakiin mudaharaad iyo waraaqo loo qoro caalamka negative baan u arkaa waxaan se filayaa caalamku uu ogyahay saldhigani wuxuu yahay marka maadaama uu og yahay oo aan mudaharaad cid ugu sheekaysaa dee waxba tari mayso iyo waraaqo loo qoraa because already they know saldhigani wuxuu yahay what it is maxamed meel la odhan karin xukuumaddan kulmiye derbigii inagu xidhnaa way jabisay oo maalgashigii ayay dalka furtay miyaan la odhan karin waa la odhan karaa waa la odhan karaa maahe way tahay it is way tahay waxaanan arkaa arrinkaa dekadda berbera iyo arrinka saldhigu wuxuu jabiyey baaralkii ictiraaf doonka iyo arrinkii inagu xidhnaa gidaarkii inagu xidhnaa ee xagga ictiraaf doonka inaga xidhnaa ayuu jabiyey baan anigu arkaa sababtu waxaa weeye dowlad aan la ictiraafin oo international agreement la gashay dowlad kale taa micnaheedu waxa weeye waa ictiraaf iyada lafteeda ictiraafa wixii imika ka dambeeya anigu waxaan qabaa in inta madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo uu hayo madaxtinimada ee the coming months 6-8-7 months doorashadii ka hadhay anigu waxaan qabaa in ictiraafkiiba imanayo markaan sawirkan eego imika dowladdu ku talaabsatay dowladduna waxaan ogahay inay siro badanoo inagu aynaan ogeyn ay og tahay ila waa hoggaankii dalka inagu waynu iska hadlaynaa sawirro uun baynu read between the lines baynu akhrinaynaa inagu laakiin dowladdu
waxay og tahay arrimo badan oo aan shacabku ogeyn oo waxyaalaha ku saabsan waayo waxyaalahan tan waxay ugu dhiiratay og talaabada u qaaday wax ka weyn bay ogyihiin oo ka dambeeya that's what I believe maxamed shacbiga reer somaliland ee aan fahansanin iyo inta fahansan maxaad kula dardaarmi lahayd waxaan kula dardaarmayaa shacabka reer somaliland inay wixii faa'iido dalka iyo dadka iyaga u leh ee inaga inoo leh ee shacabka u leh ee dalka u leh inay gartaan dekeda berbere inay faa'iido u tahay oo dalka faa'iido u tahay 400 oo milyan oo dollar beerayeer waa miisaaniyaddii dowladda somaliland oo dhan beerayeer it's not a joke right inta waxa ay qaban doonaan ee warshad sibidh leh ee wada leh ee mashruuc leh ee airport-ya leh waxa weeyaan de waa wax dalka u soo kordhaya weeyaan saldhig waa la mid shirkadaha petroolkii baaraya ee imika qoditaanba ku dhow carqaladaha petroolkii inay loo soo saari lahaa ee 2 ceel ama 3 ceel baa gebigeennaba inagu fulo berber inuu ridaye aynu abaar kaga bixi lahayn ee dhibaato kaga bixi lahayn ee gaasho kaga bixi lahayn in la is hortaago oo kulba la yidhaahdo reer hebel haddaanu nahay halkan la qodi maayo nalooma sheegin ama waxaan annagu karaali kaba nihin dee waa waxyaalo aad iyo aad laga xishoodo wey ma dantaadii baad hortaagantay wixii adiga dan kuu ahaa ninka is hortaagaa miyaana waa yaandaro waxaan leeyahay shacabka reer somaliland danteennu waxay ku jirtay future-keena iyo future-ka carruurteennu waxay ku jirto waa in la ogolaadaa oo aan laga dhigin waxay siyaabo kale loo akhriyin maxamed mar haddaynu gabagabadii ku jirno barnaamijka gabagabadiisii maantana aad martuu tahay tvga qaranka xaruntiisii oslo norway yaad xalkan ka salaami lahay waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabka reer somaliland dibad iyo guda meel u joogaba waxaan si gaara u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud sinaayo madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan ismaaciil saylici iyo labadooda marwo golaha baarlamaanka golaha guurtida iyo 3 xisbi qaran gudoomiyeyaashooda mudane muuse biixi cabdi mudane cabdiraxmaan ciro mudane faysal cali waraabe iyo 3 xisbi qaranba halkan baan salaam baan u marinayaa dhammaantood adigana ku salaamay maxamed oo tvga qaranka ee somaliland ee norway xafiiskii norway aad iyo aad ayaad mahadsantahay waxaa intaa inoogu dhammaaday barnaamijkeenii muuqaalka toddobaadka ee aan idinku soo gudbinaynay xarunta tvga qaranka oslo oo uu marti noogu ahaa maxamed nuur axmed oo in badan deganaa dalka imaaraadka oo aan ka xog wareysanaynay imaaraadka iyo sidaynu isula jaan qaadi lahayn waayo waa dadkii deganaa si uu xoog inooga siiyo sida loola isticmaalayo wuxuu inagula talalayo sidaasaanu usoo qaadanay waayo dad badan oo imaaraadka deganaa dadkii ugu horreeyey ee deganaa dalkan imaaraadka waxay ahaayeen reer somaliland sababtaasaan u xulanay dad badan oo ka dambeeyana waan xulan doonaa barnaamijkeenu kaliya maxamed looma ahaanayo maxamed 12 sano u deganaa maadaama 12 sano u deganaa waxaan rabnaa inaan barnaamijyo badan aanu ka duubno annagoo fursaddii maanta ugu horreysay aanu ka helnay aad iyo aad baan u salaamaya maxamed sidaa iyo nooli kalante waa maxamed jaacaliif oo barnaamij soo saara eedayaha sidaa iyo nabadgelyo waa maxamed jaacaliif oo idin leh dalkaaga maxaad u qabata ha ku fakerin muxuu aniga ii qabtay dalkaygu ilma lagu dawooba dabka lagaga bayraa takanada ku garataa dadnimada ku barataa dusha sare allaa jira daafaha warbayaal dadka loogu talagalay nin lahow